iibsada yani abka laba mowduuc uu iskoolku shaqeeyaa ardayda inta badan waxaan maleeyaa way ogyihiin qaybta koowaad dad baan soo wacaan waxay yiraahdeen aniga abkaan rabaa ana isbaraya waa kaybina abku $40 waa u furnaa hal sano buu abku u furnaanaya asaga isbaraya haddii waliba halka sano ku filan weydo ardaygu uu nagu soo noqdo 6 bilood oo dheeraad aan ugu darnaa oo free ah marka waa sanadii bar sida caadiga sanad baa loo furaa ardaygii raba in loogu daro 6 biloodna ugu darnaa dadka ardayda iskoolka dhigtana abku way qaataan marka soo iyaga wuxuu ugu jiraa casharadooda included ugu yahay soo ma soo haddii aad marka rabtid WhatsApp-ka iskoolka ama qof uu ku weydiiyo waxa dhahdaa abka macadka meesha academy theory-ga haddaad haysatid ama asxaabtaada haysato meeshan ay ku qorantay manufacturing ku dhufo manufacturing qofku markuu ku dhifto contactiga iyo halkan uga soo baxaysa telefoonka iyaga emailka iyaga website-ka iyaga xitaa address-ka iyaga ku jira wax walba meeshaas ku jiraan marka meeshaas laga heli karaa soo aanu soo noqono marka mowduuceena aan casharadeenna ku soo noqono training baynu ku dhifanayna sida caadiga inoo ahayd casharadeenna baynu ku noqonaynaa waxaynu maraynay first formalka soo ma first formalka horta first formalka marar badan waynu soo qaadanay casharkaas waana inuu ku soo noqon doonaa waana qaybta ugu muhiimsan ardaydu way sahashadaan laakiin waa qayb muhiim ah muxuu muhiim yahay gaariga markaa wadid waa mas'uuliyad nafsaadi waa saaran ehelkaaga waa saaran dad baa ku wada dad baa wadada kula sheer gareynaya xayawaan baa imanaya dad baa maraya waxba dhici kara ina waxaan khatarta ka badbaadisid baa rabaa wadada kula isticmaalaya adigana ina khatar ka badbaadisid sababtoo ah qof jiidid wax xabsi Soomaa waa dhibaato hatta dad accidentally u jiidid hadii xabsi baad ku aadaysaa waa khatar weyn sadarteed waa inaad taqaanaa masaafada aad wax kaga aad gaariga awood u leedahay inaad ka qabatid qofka wadada jaraya oo kale iyo masaafada aan awood u lahayn haddaad adigoo gaariga 100 ku socda aad qof highway-ga ku jiidid ka soo qaad ilaahay baan ugu keenaa ama wadooyinka Landstrasse iyo Bundesstrasse wadooyinka dhaadheer aad ku jiidid ee 100 loo ogol yahay 100 baan ku waday gaariga waan ka qabo way ka saarmayso waxa la qiimeynaya gaariga markii 100 uu qofkan ku waday horta qofkan ama waxan xayawaankan ku dhacay ama waxan ku dhacay horta wadada ma joogi ha wuu joogi halka markuu gaarigu soo socday halka waxan ma joogi saas la isweydiinaya la wuxuu la arki karaa camera laga arki karaa weerarka baa laga arki karaa Soomaa okay haddii meel 100 mitir ama 100 iyo intaas oo mitir u jirta markaa soo socotay oo xayawaankan ama waxan wadada taagnaa waxa laga rabay inaad badbaadiso gaariga ka qabatid because waxa haysatay awooda gaariga ku qabatid Soomaa because gaariga sidiisaba xawaare kasta oo ku soconayo soo casharadeenna horeba ku soo baranay haddana baranayno xawaare kasta oo ku wadid wuxuu leeyahay cabir gaariga lagu qaban karo mar aan gaariga la qaban karin ma jirto 100 kuwad 200 kuwad 50 kuwad 30 kuwad xawaare aad ku qaban kartid yani mitir masaafo aad ku qaban kartid baa jirta tiibu marka rabaa inuu baro ugu soo celinayo waana muhiim runtii soo marka casharkeena iska guda galno xogaa sharaxaad badan ma fiicna waa fahmayna insha Allah muddo badan baynu ku soo noqon doontaa marka arday kasoo fahmi doona insha Allah so wuxuu yiri sifaan hundeedka maxaa waxa gaariga ku wada 100 haben sie eine Sekunde Reaktionszeit und fuhren eine normale Bremsung durch wie lange ist der Anhaltweg nach der Fußgänger wuxuu yiri gaariga 100 baa ku wada adoo gaariga 100 ku wada kaba soo qaad baa wax wadada kaaga soo boodeenba xayawaan ama wuxuuna wadada maraya baad aragtay ama shil wadada ka dhacay ama wadafa wuxuun baa aragtay wadada dhexdeeda wuxuu rabaa marka inuu ku yiraahdo marka aad waxa aragtay gaariga aad 100 ku wadii reaction-ka yani ficilkaaga gaariga inaad breega u dhaqaaqdo qabatid oo lugtu saartid ilaa gaariga marka breega qabatay inuu istaago masaafo intee leeg baa u baahan tahay yani waxba soo baxay Soomaa khatar baa wadadii ka soo baxday gaarigu 100 buu ku socdaa masaafo intee leeg baa u baahan tahay gaariga inaad qabatid taasoo rabaa inuu nabaro yani waxaan reaction speed iyo bremsing waxaan isku darayo anhal speed baa la isku yiraahdaa wuxuu ku leeyahay masaafo intee leeg baa u baahan tahay xisaabta waynu soo baranay horena soo baranay iyagoo kala qaybsan iyagoo isku jira waynu ku soo noqnoqdeen waana ku soo noqnoqon doonaan marar badan aan iraahno ayna secondary reaction side markaan haystay horta hal second gaariga 100 ku soconaya intuu jari karaa wuxuu jari karaa 30 mitir Soomaa gaarigu markuu 100 ku soconaya halkii ilbiriqsi wuxuu jari karaa 30 mitir marka saa darteed waxaynu ogaanay halkaas second oo aan gaariga breega lugtu ku sii waday ama aan ka falcelinay khatarta aan arkay yani inta breega lugtu ku sii waday gaariga 30 mitir buu jaray oo reebi marka aan breega lugtu saarina maadaama gaarigu 100 ku socday intee in leeg ayuu gaarigu jaray oo reebi intaana qabanin ama intaanu istaagin waa 100 mitir iyo idinka hoos bixi si fiican u xiftiya saa darteed waxaynu isu geynaynaa 130 maxay noqonaysaa waa 130 mitir Soomaa صح وينو صحنا وكا هوس منو كسو قريه هذا wax khaladno asaga ina qabanaya abka seen horeba u baranay wixii dise fraaga fuurde riixti baan food Soomaa hadii kale wuxuu raayaa waa faarash casaan buu soo saaraya oo ina qabanaya so
marka maxaa loo baahan yahay masaafada gaariga aad ku qabanaysid markii khatar soo baxdo waa 130 mitir siisina hadii uu gaarigu 100 ku soconayo xawaaraha uu kala duwanaan karaa waynu sii soconaynaa su'aasha ku xigta wuxuu yiri sifaan 100 km/h 100 baa ku soconaysaa unfuan eine normalen Bremsung durch wie lange ist der Bremse nach der Fußformel wuxuu yiri gaariga 100 baa ku wadaa si caadi ah bay isu taagtay markan wuxuu ina ka reebay reaction-kii iyo wixii ina ka reebay sababtoo inaga markan go'aansanayna istaagno laakiin wax khatar ah hadii inuu ku soo boodnimo jirto si uu inuu ku sharaxay marka gaariga 100 ku socda baa rabtaa inay istaagtisid wuxuun baa dhacay si uun baa wax noqdeen ama taayir ama wuxuun baa wax ka gaareen adigu inay istaagtid baa rabtaa inta in leeg buu gaarigu soconaya de sodonkii iska jir reaction speed aha dabeedna waxa tiraahdaa reaction set ka aha dabeedna waxa tiraahdaa 100 soma waa 100 mar hadaan wax kale inoo helin gaariguna 100 ku socdo bremsinka waa 100 mar kasta 100 mitir buu gaarigu u baahan yahay marka breega lugta saartid ilaa gaarigu iska taagayo 100 mitir buu gaarigu jaraya that means hadii 100 mitir wax ka sokeeyo ee khatartaas u tahay kama qaban kartid gaariga tartiib iska socon oo ku dhacaysa maskaxda ku hay soo 100 waynu saxnay tan ku xigta wuxuu yiri sifaan waxa ku soconaysaa 100 km/h 100 baa ku soconaysaa haben eine Sekunde Reaktionszeit wie lange ist der Reaktionsweg nach der Fußformel inta uu inoo kala jaray wuxuu yiri adoo 100 ku soconaya baa wax kugu soo boodeen waxba aragtay inta aad breega lugta ka gaarsiinaysid hal ilbriqsi oo aad breega lugta ka gaarsiinaysid gaarigu intuu jaraya deetiinu soo baranay buu kaligeed inoo keenay marna kali buu inoo weydiinaya marna waa keenay isugu daraya moogtay wuxuu maskaxdaada ku soo celinaya inay xifdidid buu rabaa because waa mowduuc muhiim ah wuxuu leenahay waa 30 mitir anigu intaan breega lugta ku sii wado ilbriqsigaas gaarigu 30 mitir buu jaraya okay waynu saxnay inuu ka gudbeyna su'aasha ugu dambaysa marka su'aashan waxaan rabaa qof kasta inuu ka jawaabo marka عبر بعد سينايا sababtoo waxaanu soo baranay oo muhiim waliba nolosheena u ah buu ku soo xiriyo wuxuu yiri sifaan waxa ku soconaysa fumsi kmh konton baa ku soconaysa boqol baynu markii hore ahay Soomaa konton baynu ka dhigay haddana ayna secondary reaction site waxana haysata hal ilbriqsi oo gaariga ku qabatid yani hal ilbriqsina breega lugta ku gaarsiisid baa rabtaa fuan ayna normale Bremsung durch wie lange ist der Anhaltweg nach der Fußformel wuxuu yiri gaariga adoo konton ku wada waaba wax wadada ka soo baxeen ba khatar ah breegi baa lugtu saartay gaariga inay qabatid baa rabtaa inta breegi lugta saareys iyo inta gaarigu ka isu taagay masaafadaas oo la isku daray baa waxa la yiraahdaa anhaltisfeege imise noqonaysa waynu soo baranay iyadoo 100 ah Soomaa ya iyadoo 100 baynu soo baran hadda konton baynu ku soconaa 10ka kontonka inaynu kuma cusbo hore u soo baxay hore noo soo marnay Soomaa haye soo saar marka waxaan idin rabaa inta mitir ee aan ku badbaadin karo shaygaas ama qofkaas iga soo horbaxay haddaan mar konton ku soconay 100 markaynu ku soconaynay oo la isugu keen daray 100 xawaaraha iyo reaction site-ka oo hal sekine waxaynu haysanay 130 Soomaa haye 130 kama laba loo kala jaraya haye 65 bay noqonaysaa ma 65 ma noqonayso waa khaldanta 65 ma noqonayso imisa arday baa qabayna 65 noqonayso ma noqonayso so mid maskaxdiina ku haya markasta meedin daaya ma ka shaqeynaysaa mid maskaxdiina ku haya markasta waxa maskaxda ku haysaa mar walba oo xawaaraha gaariga eenu laba jibaarno inuu kor u qaadno ka soo qaad ama inuu hoos u soo dhino oo half soo jarno ama kaba soo qaad markasta xawaaraha gaariga laba jibaarno reaction site wuu isla laba jibaaraya laakiin bremsinka miyuu isla laba jibaaraya ما هو يسافر جبارية صوما هو يسافر جبارية مركنه هو سوء أدنى دي أفر بوق قيب سمايا صوما صادرتد مركنه كنتم كسرعوني هدينا هذا بقول كسرعون لهم بقول بوها بريمس فيك صوما حتى بحون غنا يا مرك ما دام أفر لو قيبني شن يلا صوما شن لا تحوق جيسا رياكسيون سيد كوحوني ودبلي سجى مرك هاف بصون غنا يا صوما شن يتوم بينك كوعي صدم بوا صادرتد شن لا تني شن صدم اللي يسوقي إحنا غنا 4 متر صوما 4 متر وكاس waa saxaya Soomaa waa 4 mitir okay marka hadaa gaariga konton ku wadid oo wax khatar ah wadada kaaga soo baxaanin gaariga xawaaraha ku qaban masaafada ku qaban kartay waa 40 mitir 40 mitir wixii ka yar kama qaban